Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Socrates Academy. Maanta cashirkeenu wuxuu ku saabsan yahay misena aan ku qaadanaynaa sida loo sameeyo adeega loo yaqaano EVC Plus-ka ama warqadaha lacag tuurista ee dukaamada lagu dejiyo. Sideenu ku sameynaynaa anagoo aan isticmaalayno Microsoft Word. Marka ugu horeysa waxaan soo kacsanayaa Wordkayga ayaan soo kacsanayaa. Waxaa jira cashir hore aan usoo diyaariyo aan kasoo diyaariyo cashirka koowaad ee Wordka. Fadlan cashirkaasi soo daawo si aad u fahanto cashirkan hadda. Marka aan soo kacsado waxaan saxanayaa horta layoutka warqadayda. Waxaan ku dhufanayaa page layout. Waxaan ka dooranayaa meesha ay ku qoran tahay orientation. Waxaan ka dhiganayaa landscape. Landscape markaan ka dhigto waxaan sameynayaa oo soo qaadanayaa insert tabka ayaan ku dhufanayaa. Waxaan kasii dooranayaa shape meesha ay ku qoran tahay. Waxaan soo dooranayaa marka shape-kan ugu hore ayaan soo dooranayaa. Click markaan ku siiyo halkan ayaan ku jiidayaa. Halkaasi ayaan ku jiidayaa. Markaan ku jiido marka ugu horeysa waxaan ka dhigayaa horta marka no fill qoraalka dhexdiisa ku jiro ayaan ka saarayaa. Kadibna waxaan ku dhahayaa right click markaan ku dhaho waxaan ka dooranayaa add text qoraal inaan ku darsado. Qoraalka ayaan ku darsanayaa oo waxaan ka dhiganayaa Safari. Farta midabkeeda ayaa iga duwan. Waa farta midabkeeda inaan madow ka dhigto. Safari Market suuqa Safari. Kadib fartaada calaamayso. Kadib farta waxaad ku dartaa waad weyneynaysaa. Waxaan rabaa ilaa meesha dhan inay ii wada qaado. Kadib halkan ayaan ku dhufanayaa oo waxaan ka bedelanayaa farta. Farta markaan ka bedelo waxaa weynaanayaa qoraalka farta. Waxaan sameynayaa dib ayaan usoo yareynayaa. Dib markaan usoo yareeyo waxay ii soo baxday far maasha Allah qurxoon. Sidaas oo kale haddana waxaan ka bedelayaa midabka farta oo midab alaale iyo midabka jeceshahay ayaad ka dhigan kartaa adigu. Marka calaamadda wareegisa aad uga qaado waxaad ku dhufanaysaa halkaas ayaa muuska keensanaysaa. Double click ku sii. Kadib waxaad ka dooranaysaa shape outline. Kadibna waxaad ka dooranaysaa no outline. Meeshaas waxaa ka baxay hadda xariiqa wareega ah. Sidaas la mid haddana waxaan soo dooranayaa shape-kii. Kadibna halkaani ayaan keensanayaa oo ku soo jiidanayaa. Kadibna right click ayaan ku dhahayaa add text ayaan ka dooranayaa. Meeshaas waxaan ku qorayaa mini market. Kadibna isla sidaas oo kaleeto home tabka ayaad ku dhufanaysaa. Farta ayaad weynaysanaysaa. Farta waad bedelaysaa oo waxaad ka dhiganaysaa new terms. Kadibna double click ku sii shape-ka. Kadib waxaad ka doorataa shape outline no outline ka dhig. Kadibna shape fill ka dooro no fill ka dhig. Kadibna farta gudaha click ku sii midabka farta bedelo oo midabkeedii ayaan ka dhigayaa. Oo hadda marka waxaan samaystay magacii marketka iyo waxa uu yahay. Marka waxaan soo gelinayaa hadda marka waxyaabihii marka laga heli karayaan isleeyahay suuqa waa laga heli karayaa. Marka koowaad intaan wax soo gelinin waxaan soo gashanayaa horta shapes. Shape-kan ayaan soo qaadanayaa. Halkaani ayaan ku jiidanayaa oo waxaan banaysanayaa meel aan ku qoran karaa nambarkayga. Shape-kani ayaa waxaan rabaa shape u eg inaan ka sameeyo. Waxaa qabanaysaa control iyo alt kadibna waad jiidaysaa. Markaad jiido wuxuu ka samaysmayaa mid kale copy ah. Isla sidaas oo kale control iyo alt qabo wuxuu samaysmayaa mid kaleeto. Sidaas si kala mid ah haddana mid kale qabo oo mid kale afraad ka sameey. Waxaad arkaysaa hadda 4 xab ayaan sameeyay kala weyn. Waxaan sameynayaa marka mid walba waan yareynayaa. Saan midka ugu dambeeyo aan space ugu soo saaro.
Marka sidaas sameeyo, waxaan sameynayaa shape-kan ayaan click ku siinayaa. Waxaan ka dooranayaa shape fill, kadibna picture ayaan ka dooranayaa. Picture markaan ka doorto, wuxuu i geynayaa sawiradeeda meesha ay yaalaan iyo halka ay yaalaan. Waxaan ka dooranayaa marka sawirada halka ay yaalaan aniga. Sawirada waxay ii yaalaan meeshaan ay ugu qoran tahay mini market-ka. Waxaan kasoo dooranayaa midkaan ugu horeeyo, click ayaan ku siinayaa. Sawirkii wuu ii soo galayaa. Kasta xoogaa ciriiri uu ka jiro. Kan kale ayaan click ku siinayaa. Waxaan ka dooranayaa shape fill, kadibna waxaan soo gashanayaa sawir kale ayaan soo gelinayaa. Okay, kan kale ayaan click ku siinayaa. Shape outline ay ka dooranaysaa. Shape fill ay ka dooranaysaa. Picture ka dooro, kadibna sawirkan anaa ayaan soo gelinayaa. Kanaa click ku siinayaa. Shape fill ayaan ka dooranayaa. Picture ayaan ka dooranayaa. Kadibna waxaan iska soo gelinayaa midkaan oo kaleeto oo ah anaa kale. Kadibna waxaan sameynayaa marka xoogaa shape-ki ayaan yareynayaa. Kan ayaan soo qaadayaa xoogaa uu weyn yahay, uu yar yahay aan soo qaado. Markaa kanna soo qaad, xoogaa ku dar. Marka hadda sidaas waxaa ku sameysaa marka waxyaabihii laga heli karo aad is leedahay ayaad ku sameyn. Haddaad baabuur sameysanayso, baabuurtii wixii soo gelinaysaa, wixii dukaankaada uu ku saabsan yahay ayaa meesha aad soo gelinaysa si aad ugu caddeyso. Calaamadaha wareegana waxaad ku siinaysaa mid walba click adigoo control-ka haya saddexdooda hal mar ama afartooda select gareey. Kadibna shape fill ka dooro, no outline ka dooro. Dhammaantooda sidaas ayuu outline uga baxayaa. Waxaa ii soo haray marka halkee ku qoranayaa numberka. Numberka waxaad ku qoranaysaa qaybtan hoose. Waxaad ku dhufanaysaa insert-iga. Waxaad ka dooranaysaa shape-ka. Waxaad kasii dooranaysaa text box ugu geeseeyo. Halkaan ayaan keensanayaa. Kadib waxaad ku qoranaysaa numberkaada ama qaabka loogu talagalay in lagu xoro EVC-ga. Tusaale kaleeto, waxaa laga yaabaa numberkaada inuu akoon uu yahay. Numberkaada in uu akoon uu yahay. Akoon hadduu yahay, labaduba waan isku hoos qorayaa EVC ama akoon labaduba. Waxaan dhahayaa akoon markuu yahay waa 78 ayuu ka bilaabanayaa. Kadibna numberka 70 38 50. Kadibna waxaad gelinaysaa meeshaasi lacagta dollarka ah. Kadibna afar gees ayaad u raacinaysaa qofka. Soo afar geeska waa markay u dambeyso ee lacagta la tuurayo. Intaan dhahayaa haddana EVC ayaan gelinayaa 712. Kadibna numberka qofka ayaa la gelinayaa meeshaasi. Xidig ayaa la hayaa. Lacagta loo tuurayo ayaa la gelinayaa qofka meeshaasi. Yaanan dhinaal. Kadibna afar gees ayaa la taabanayaa. Kadib fartaada select gareyso. Waxaad qortay dhan. Home tab-ka tag. Waxaad ka dooranaysaa qaybtan dhexda ah. Markaad ka doorato, farta waxbaa lagu darayaa, waa la weyneynayaa. Farta waxbaa lagu darayaa oo waa la weyneynayaa oo kor ayaan xoogaa u jiidanayaa si loo arko nambaraha iga qarsanayo si loo arko. Kadibna numberka kan markaan rabo inaan ka hoos mariyo, waxaan ku dhufanayaa midkaan right click. Kadibna send back ayaan dhahayaa. Send back markaan dhaho, xoogaa nambaradii kore ayaa wax iga qarsamay. Hoos baan u soo degayaa. Fart ayaan bedelanayaa. Fartayda midii aan qaadanayo waa new terms. New terms ayaan ka dhiganayaa oo waxaad aragtaa hadda fartii inaan bedelay. Marka sawiradan ayaa xoogaa marka kor u qaadanaya ayaga hal mar ayagoo isla socdo. Kor ayaan u sikinayaa. Control-ka qabo. Flare-ta korka ay jirto taabo. Si sawiradii iyagoo isla socda hal mar ay kor u wada aadaan. Kadibna waxaan imaanayaa halkaani. Kadibna select garee Control A. Kadibna midabka ka bedelo oo midabkii fartu ku tahay. Halkan double click ku siisa outline-ka aad ugu qaado. Sidaas waxaan ugu qaaday outline-ka. Hadda warqadeeda haddaan isku dayo inaan print gareysto ama aan daawacdo, waxay igu soo bixaysaa sida aad u jeedo.
Sidaas waa marka sida loo sameeyo akoon iyadoo ah ama EVC iyadoo ah labadaba waan isku hoos qoray. Cashirkeena halkaas ayuu ku egyahay. Fadlan haddaad ku cusubtahay channelka subscribe saar, gaarsii asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan.